goobtan uu ku dhex lugeynayo madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waa deegaanada Sabiib iyo Caanood ee gobolka Shabeellada Hoose. ciidamada xoogga ee dalka ayaa halkan dhawaan waxay ka saareen kooxda al-shabaab. madaxweynuhu waxa uu ku dhex lugeeyay dhufiisadan kala duwan ee ciidamada xooggu ay ka sameysteen deegaanadan isagoo warbixin ka dhageysanaya taliyaha ciidanka lugta General Odawa oo halkan joogay. taliyaha ciidanka xoogga dalka Sarreeye Gaas Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho ayaa sheegay inaanay dhici doonin in ciidamadu halkan ay ka laabtaan. sharaf bay idin tahay in madaxweynuhu idinku soo booqdo idinkoo difaaciina hore iyo bartii hore jooga. runtii waa wax markasta aan la heli karin oo taariikha. marka waxaan aad iyo aad idinku boorinayaa inaad ka dhabaysaan rabitaanka iyo waxa la idinka filaayo ee dhammaan madaxweynuhu idinka filaayo, annaga idinka filayno, dhammaan xoogga dalka Soomaaliya idinka filaayo, ummadda Soomaaliyeedna idinka filayso. dadka magaaladan jooga dhibaatooyin badan baa ku dhacday, 10 jeer baa u nimid waa ka noqonnay, markaa ma noqonayno, lagama yaabo inaan noqono. madaxweynaha ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa goobtan u yimid si uu wax badan uga ogaado xaaladda ciidamada iyo xoojinta howlgallada dalka looga sifeynaya al-shabaab. waxa uu bogaadiyey ciidamada goobtan ka saaray al-shabaab isagoo kula dardaarmay ciidamadan in shacabka ku nool deegaanadan laga difaaco cadowga. hambalyaan idin leeyahay guushii aad ka soo hoyseen inaad ka adkaateen cadowga ummadda Soomaaliyeed intaasoo sano soo dhibaayay, inaad ka adkaateen oo aad kaga guulaysateen oo idin babac dhigi waayeen oo ay iska kiin maxaan ku difaaci waayeen. markaad meeshaan timaadeen waa carareen soo maaha, waa dhaqankay leeyihiin. marka waxaa loo baahan yahay sidii aad magaaladan uga erideen Sabiib iyo Caanood aad uga erideen oo aad uga adkaateen inaad u difaacataan magaaladan, shacabka magaaladan degan oo muddo dheer ay gumaysi ku hayeenna aad ka difaacdaan. madaxweynaha ayaa sheegay in howlgalkan uu sii socon doono ilaa inta al-shabaab meel ka mid ah Soomaaliya lagu sheego, waxaana uu kula dardaarmay ciidamadu joogteynta howlgalladan si aysan kooxdaasi fursad ugu helin maligidda qaraxyo ay la eegtaan shacabka. markaa waxaa la rabaa inaad soo jeedaan, inaydan seexan, inaad meeshay joogaan aad ugu tagtaan oo aydan halkan ku sugin. haddaad soo jeedaan ood u diyaarsan tihiin inaad difaacdaan shacabkiinna, inaad difaacdaan, idiin soo bawac dhigi maayaan. waa fulayo, waxay yaqaanaan inay shacabka qarxiyaan, inay carruurta laayaan, laakiin wiilal idinkoo kale ah marna hortiin ma imaanayaan, mana idin soo wajahayaan. maxaa yeelay waxay og yihiin inaad la hortaagan tihiin geesinimo. magaaladan kama tegayno, keliya maaha waa soconaynaa, waxaan ugu tegaynaa meel kasta ay joogaan. annaguna waa idin garab taagannahay, ma maqlaysaan? annaguna waa idin garab taagannahay, waa idin soo booqanaynaa, ciidamo kale idinku soo kordhinaynaa, waa bacsanaynaa ilaa ay tirtirmaan. marna ma yeelayno, marna ma u dulqaadanayno inta ay meelahan ka tagaan oo ay ku samaystaan wixii la qarxinayay, oo ay maatida iyo carruurta ay maxaan ku rahdaa ku laayaan oo hantida ku burburiyaan. ka yeeli mayno. ka saarista goobtan oo ah deegaanka Sabiib kooxdii al-shabaab iyo kuwa kale oo ku yaala gobolkan Shabeellada Hoose kuma iman si sahlan, balse ciidanka xoogga dalka ayaa si qasab halkan uga saaray al-shabaab dhawaan, waxaana ay dadka iyo deegaankanba ku hayeen dhibaato badan. madaxweynaha dalka ayaa booqashadiisa maanta deegaankan waxa ay qayb ka ahayd sidii uu waqti ula qaadan lahaa ciidankan xoogga dalka ee halkan ku yimid dagaalka, si uu u dhiirigeliyo howlgalkan mid la mid ah oo deegaanada kale ee weli gacanta ay ku hayaan looga saaro kooxdan. Cali Baashi Cabdullaahi, warbaahinta qaranka, deegaanka Sabiib, gobolka Shabeellada Hoose.